عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. magaalada Qardho xarunta gobolka Karkaar ayaa kamid ah magaalooyinka maanta sida weyn looga ciiday. Boqolaal dadweyne ayaa isugu soo baxay goobo ay kamid yihiin buundada weyn ee magaalada Qardho iyo garoonka Bobe Stadium. Waxaa maanta la wadaagay farxadda munaasabada Ciidul Fidriga qaar kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Puntland. ugu horreyn waxaa ka hadlay Sheekh Daahir Awcad. dawladda shacabka ka mid tahay waa adeegayaal haddii shacabku maaragtay taladiisa ka soo bixi taladiisa qabsanin dawladdu waxba qaban mayso. waxaa loo baahan yahay shacabku inay noqdaan dad amniga ka shaqeeya, dad talada ka shaqeeya, dad wax wanaagsan soo keena. waxaa loo baahan yahay qabaa'isha inay iskaalmaysato, waxaa loo baahan yahay qabaa'isha inay khayrka ka shaqeeyaan. sidoo kale waxay iguna goobta ka hadlay wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland, agaasimaha guud wasaaradda cadaaladda diinta awqaafta Puntland oo dhammaan hambalyo u diray ummadda islaamka. maanta waa maalintii ciidul fidriga ah, waxaan dhammaan dadka muslimiinta ah, dadka Soomaaliyeed iyo inta kale halkan joogtay ciidan maanta soo gashay ciidul fidriga waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhair. waxaan rabaa inaan dowladdii Puntland ugu horreeyay madaxweynihii mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo dhammaan xukuumadda oo dhan waxay idin leeyihiin ciid mubaarak kullu caam. waxaa gabagabadii goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdiqaadir Saciid Carshe Dhaqaaje, gudoomiyihii hore ee degmada Qardho Maxamed Saciid Ciise Gool, hogaamiye Laroor. ciidul fidriga inta ka soo qeyb gashay mas'uuliyiinta dawladda, culimada, shacabweynaha reer Qardho gaar ahaan gobolka Karkaar waxaan ku hambalyeeyaa acmaashii wanaagsaneyd oo aynu soo qabanay in Ilaahay ina ka aqbalo. عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم إلى صالح العمل. كنت وحلا هاي مدة صوالح هاي السعادين قلبك يسوفين. عبد الشكور عيسى علي، تلفزيون كعالمي سومالي كيبل، مقالة قردو.